anoo bini aadanka adduunka jooga ugu farxad badan oo shaqo haysto oo lacag haysto oo reer haysto aan wixii intaas aan tabcaayo dhan hal mar waaye Ilyas wax aan dhacaynin adduunkan ma laha I lost my best friends I lost my wife I lost my money I lost my shaqo I lost my everything bini aadanka adduunka iigu dhow iyo bini aadanka adduunka hadday reer noqoto iyo hadday qabiil noqoto iyo haddii ay famil noqoto qof walba qof intuu iga xigo wuxuu igu noqday ani cadow Ilyas wallaahi alcadiim nolosheeda boqolkiiba 70 waa lusgareeyani noloshii adduunka dhan wax aan iloobin adduunkan nolol dhan walahi ma jirto I lost everything wax walba aan haystay waa lusgareeyay maxaan ka dhaxlay marka waxaan ka dhaxlay qof walba inta qof uu iiga dhow yahay inuu igu noqdo marka cadow dad ficay inay aniga igu qoslaan social media in la iga waayo filimaantii aniga aan jili xataa in challenge la iga suubiyo dhalinyaro adduunka ah ugu jeclaa in aniga xaasid igu noqdaan adigu waxa ka hadlaysid waa gabar bas gabdha Soomaaliyeed oo xuural ceena adduunka meelaysa joogin male ani waxa aaminsanahay gabar kale adii sheekadeeda ay ku ekaan lahayd nolosheeda dib weyn xitaa wallahi bilaa tala ima qabsadeen laakiin wax walbo adduunka aan tabcaaye oo haystay hal mar ay irida ka baxeen dadka iigu xigo aniga oo fiidiyoyaasha iyo waxay ii soo duubayaan dhan kulli waxay noqotay wax aniga liigu dhaga hadlayo heer waxaan gaaray xitaa seexan waayo raashin iyo cunto iska ilow saaxiibkay marka adiga waxa ka hadlaysaa waa gabar bas meeqa milyan oo gabdhood oo Soomaaliyeed oo qurux badan oo xuural ceena adduunka kula joogo 2,000 iyo 10,000 iyo 100,000 iyo more than 100,000 oo dollar iga baxday oo caawa la'aanayn saaxiibkay dad baa Soomaali qabiil walba ah oo dir iyo daarood leh baa 10 markab oo sokora intay Brazil ka soo rartaan oo baddaas ku gadoomaa adduunka waxa la weyn male in adeer macaane dardaarka ku siinaya waxa waaye anoo abtiliibana oo Soomaaliyo dhan itaqaano wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi dadka dhibaatada igu suubiye aday maanta awoodi lahaayeen ununkaas inay iga jiraan oo way iga jar lahayn laakiin maxaan ku baxsaday family ijcal iyo Allah subhanahu wa ta'ala oo aan wakiishay maanta wadana joogtaa lacag waa shaqeyn kartaa gabar waa heli kartaa waxaadan heli karin male laakiin hal dardaaran aan ku siinaa naftaada adiga mas'uulka ah horumarkaaga adaa mas'uulka ah dadka walaalaha adiga ku jecel kaliya saaxiibtinimo adiga kugu fil inta qolkan kula joogto maanta ku codeysay in ku dhaanto wallahi billahi tallahi inaysan jirin walaa xitaa kan kula dhashaa aade qof walba adduunka taagan sidoo adiga dhibaato ku gaarsiin lahaa umbu u ka shaqeynaya war xaaskeyga iyo gurigeyga iyo nolosheeda iyo lacagteeda iyo saaxiibaday hal mar isku meel ka baxeen keligay aan noqday keligay reerka ka dhashaa intay colaadiyeen wiilka dhibaatada igu suubiyay beesha mareexana maanta kor ii qaaday xitaa ilaahay wuji war dhibaatada aniga i gaartay adduunyada ilaahay qof bini aadmi gaartay qof bini aadno sorry ila maraxta war aniga nolosheeda haday wax ku dhacaysa mar horeyta waxay ku dhicileen adiga waxa ka leeyahay gabar nolosheedii dhanaan loos gareeyaan ku dhahay nolosheedii dhanaan loos gareeyay qof bini aadna xitaa uma sheegin laakiin daar Cabdillah Calaso wax walba uu ogyahay صاحب والله نبي كل شيء إنه صومالي محمد يهودا اسكو دقن واي قف بني آدنو ما أنت وهل أكيد كرتت أو آمني كرتت أنت قولك أسكولا صار الموية إن كليت والله العظيم ما جرت أنا سفي عني دقيس
nolosheedii iyo mustaqbalkeygii iyo xaaskeygi iyo gurigeygii iyo lacagteedii iyo shaqadeedii hal mar ma waaye stiil waxaan aaminsanahay gabdho wanaagsan oo Soomaaliyeed inay bannaanka joogaan shaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala bixiyo lacagna ilaahay subxaanahu wa tacaala bixiyo in allaha yarzuqu man yashaa'u bikhayrin xisaab dadkan waxay u maleeyeen irsaaqada in ilaahay ayaga ugu dhiibay walaalow macaanow aniga halka eray aniga aan kala daarmayo waxa waaye walaalow macaanow noloshaada qof bini aadana gacanta ha u gelin noloshaada qof ha u dhiibin wax waa jeclaan kartaa waxna waa weyn kartaa wiilal iyo gabdho isqabo isjecela hal mar gabadhi intay uur yeelato asoo xaaskiisa jecelay intay isbitaal gasho labadii cunug oo mataanaha iyo gabadhi isku mar ay dhintaan dad baa wax waa weyn waayey saaxiib adduunka waxaa ugu jeclaa aabbahay saaxiibka keliya adduunkaa ku leey waa wallahi in aabbahay kuu sheegane anoo qayilaayo baashaalaayo oo aabbahay dhintay ani nolosheeda beenka ma sheegaani asoo hurduu dhintay abboon shaksi igaga fiican adduunka wallahi nusu joogin wallahi runtaa kuu sheegaa wax badan oo adiga oo ku jecel iyo dad badan oo adiga ku jecel baa bannaankaas joogo hal qof baad adiga noloshaadii dhan ku soo koobtay that's a big problem weligaa qof ha isku dhiibin horay u soco qaranjo ma qarankii baad ku samaynaysaa inta lacag bay kaa qaad su'aalaha si sax u babaa okay qarankii bay Soomaa gabadhaasi Soomaaliyeed ee qaranjo lacag kaamay qaadanin qarankii baad ku samaynaysay dukaatada oo kala kicisaa waday okay halkaas waxaan rabaa si la maqlayo inaa u tiraahdo hoos fiilm rabo dhinac fiilm rabo sababtoo gabadh Soomaaliyeed wey in magaceeda lagu dheelin xaq loo malaha laakiin waa samayn kartaa baranka xaq u leedahay waa si inaa ka garaawda oo marka dabta waxaan baranka bay ahayd ya soo fiir aniga si dhaba nin weynaa tahay mugta ciyaartoodnimo la rabo okay gabadha xaq ka qabtaa mise baranka bay toos shacabka ku daawanayaan barankeed okay su'aasha labaad waxa weeye gabadhan ma jeceshahay mise baranka wey gabadhan ma jeceshahay mise baranka oo jecla mudiga waayo عشان صار عذر وين سوي دمنت waayo qalanka ka soo mudka qalanka ka soo mudka daarooku maqlaa ku soco in xawa halka lagu dhaqay ku jeerna aan ka raali gelinayno in ninkaasi ay ka ahayd barankii lacag bay iga qaadatay ma ku qanacday inuu yiri barankii bay ahayd raali gelin karaa isaga intuu soo fadhiistaan la qoqla jeedin karaa ani su'aashana weydiimay taas waa imaanaysaa waa late maad ku qanacday inuu ninkaasi yiri gabadhaasi barankii bay ahayd waxaan ka sheegay lacag ma qabto ma ku qanacday inuu been sheegay yes waa ku qancay inuu been sheegay been ma dhigan barankii bay ahayd may been ay daahir barankii buu yiri baasha okay barankii uu sameeyay soo sharafteeda barankii gasho okay waa gar inuu inta qirtay ma ku qanacday waa ku qancay ku soco okay inuu ku jeclaado xaq ma u leeyahay mise uma laha sharafteeda qofan qiimeynaynin xaq inuu jeclaado su'aashta su'aal ninkaas maya no la okay su'aasha ku wicilay ninkaas waxa laga yaabaa dumarnimada ku qaadi inuu wiilka asoo ku jeclaado xaq ma u leeyahay mise xaq uma laha daahir makaa daacad baa inuu ku jeclaado wiilka Soomaaliyeed inuu ku jeclaado xaq ma u leeyahay mise uma laha that's my question xaqu u leeyahay jacayl laakiin anigu kuma jecli أنا كم ودين أدي ما جعشها ما أقبل شيء سؤال أقول لي طبعا ضد ومهر يقف يتشعل يسوق ستوصل أوكي أدي لك مرة أنا مرة بقى
okay maxaad codsanaysaa in lagu xaal mariyo aniga lacag maribi waxba maribi wiilkaas ha isoo fiiriyo rageed camal ha isoo fiiriyo ya qalanjo walaal macaan cafisi masaamaxa idhaho that's it qolkana waa idiga baxaya in lagu xaal mariyaa raba qolkan bixist may daahir ana lacag ma doonaya anigu keliya waxaa doonaya magacayga in la dhaqo fadlan adoo raaliya walaal waa mahadsantahay mudgal mudqaado Elias ay soo fiiri Elias ma ogtaa qalanjo inay qof dumarata oo ceebtay u nugusha mud ka bax Elias ma ogtahay in qalanjo ay tahay qof dumar gabar Soomaaliyeed tahay ay guur rabto ay mustaqbal rabto oo ehel hooyadeed iyo aabaheed iyo walaalaheed daawanayaan oo haddii la waa tuuga ay magaceeda dhimanayso oo sharafteed dhimanay ma ogta barankii aad ku samaysid waa beenlo waad ku dhihi mayno maxaad ku xaal marinaysaa gabadha oo ku hargelinaysaa afkaa wax kasta wuu awooday hadda maanta afkaa muxuu awoodaa waxaan kaa codsanaynaa annagoo 6,000 oo qof oo Soomaali ah gabadha marka hore raaligisto su'aal kale ku weydiin doonaa inaad toos u raaligeliso qaladka ay kaa tabato waa walaasha isku ciish baa ahaydeen barnaamijka wadaaga ahaydeen gabadhii waa la caayay barankeega wuxuu saameyn maskaxiin ah oo u jeeda wejigeeda waxaan kaa codsanayaa inaad raaligeliso maya jooji muudkaa ku jira qalanjo taasi xaq looguma laha laakiin inuu hadlo xaq lagu leeyahay haye Elias halkii fuday waqtiga sidoo kale waa hadal weyn oo inuu ka saarayso waa gabar Soomaaliyeed oo isku dila waxaan oo kale waa halis aad samaysay gabar Soomaaliyeed oo walaal leedahay ehel bay leedahay waalid bay leedahay qabiil bay ka dhalatay waa isku cay kala birka maalmiga la soo qaadan karaa arrintu xarba in hargil aka bixiso walaashay si raganimo leh oo ah waliba kadibna qodobo kale xasaasi ah inuu gudbo oo farxad geli doono on ka hadalno Okay,